magacaygu waa Cabdiqaadir Cabdidilco waxaan hees dareen la wadaagay degmada Axmed Jab marka heestan hadda qaaday waxay tahay anigu qosayso dareenkayga marka qofkii dhalinyarada wax dareema uu dareemi kara qof walba dhibkiisa uu ka turjumi kara ma dhawaan dhacda waxay u dhacday 2009 bishii 6 bay ugu dhacday wallahi kullee ba waxay ii daliishadeen ayaga baa ogaayay anigu inaan dhalinyarada baan iska ardaya oo markaas xaafadiisa jooga halka degmada daynay laban deganaa laakiin waxa ka bari jiray degmadan oo hawlwadaag waxaan rabaa inaan Cabdiqaadir Sacbar asasiisan dhamaantiinba Instagram-kaygu igala soo xiriiray markaan arkay gacantiisii midig iyo gacantiisii iyo lugtiisii bidix oo markaan qiirooday iyo markii aan dareemay inaan xamar ay u baahan tahay nabad iyo nolol Sacbar asasiiya gudoomiyaasha iyo xildhibaaniinta oo dhammaan waana ninkii aan Instagram-ka markuu igala soo xiriiray oo sheekooyinka iyo qisooyinka wixii ku dhacay oo wixii diijiswaadka magaaladan mar labaad Sacbar Aksan walaalkiisa mid baan ogahay walaaltinimo sinjiyo dareen iyo Soomaalinimo xuduud ma laha waa ninkii baray Sacbar Aksan Cabdiqaadir awana heestu inii qaadaya
qabriga jira qacdi horeba gacantay laba qarka yeeleen qaarkiyo jirkaygii waxyahaygii qalbaan loo qoday xabaalo aasan oo qabriga jira qacdi horeba gacantay laba qarka yeeleen markii xigay kuus go'ay lugdii qaradaawey qabkay u gooyeen xubnahayga u qordeen markii xigay kuus go'ay lugdii qaradaawey qabkay u gooyeen xubnahayga u qordeen inkastoo qamuuyada ciilhu sanaan qaabo oo bulshadu qadariino naafada la quursado inkastoo qamuuyada ciilhu sanaan qaabo oo bulshadu qadariino naafada la quursado qalbigaygu muujabin maskaxda qaafil kama noqon qayrkayna kama harin qaangaar barbaaro qalbiyo dadkiisii qiirada wadaninimo waxaan ahay la qaybsada qalbigaygu muujabin maskaxda qaafil kama noqon qayrkayna kama harin qaangaar barbaaro qarankiyo dadkiisii qiirada wadaninimo waxaan ahay la qaybsada qalbigaygu muujabin الرحمن علم القرآن خلق الإنسان bishaaro macadka imaamu naafid waxa uu qur-aanka kariimka kugu baraya hab casriya oo online ah adiga oo jooga hoygaaga iyo goobtaada shaqo bulshoy haddii barashada qur-aanka loo geli jiray safar hadda waxaad ku baranaysaa qur-aanka iyo culumta islaamka adiga oo jooga hoygaaga ama goobtaada shaqo dugsiga online-ka ee barashada qur-aanka iyo culumta islaamka duruusta uu sida taxaanaha u bixinayo waxaa ka mid a barashada qur-aanka iyo higaada culumta shareecada tarbiyada ubadka iyo luqadda carabiga qiraa'aadka qur-aanka kariimka iyo barashada salaada isqoristu waa ay socotaa ee wixii faahfaahinaya intaasi dheer kala xidhiir telefoonada iyo ciwaanada kuu muuqanaya mar kasta iyo meel kasta bulshoy ballanteenu waa macadka